ruuceel oo dhamaan rabnaa inaan hal qof ka dhigno haddii lahayd iyo hal jufo sidaasaana magaalada inagu deeqdaa laga dhaafo gabdhaha waxaa la yidhaha saqiira suujiska iyo borobokista cararaysa masaafada. bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasala allahuma calaa sayidina mawlana maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. amaa bacdu, culamaa diinka halka fadhida, dhallinyarada, gabdhaha, odayaasha, ba'da saxaafadda, dhammaan bulshada qaybada kala duwan, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan kadib waxaan u malaynaa wax hadda la isu sheego badan meesha ma yaalaan. waxaan halkan u fadhinaa maanta haddii ilaahay idmo inay ka dhacdo xafladaha fargutiriska la iskugu yimaado kuwooda khayrka badan oo ah meherkaasoo aad aragtaan magacyada meeshaas ku qoran, gabar iyo wiil walaalo ah oo iscalmaday in maanta halkaan aan ku meherino haddii ilaahay idmo. waxaa arki jirteen dhaqan waayihii u dambeeyey marka la rabo in meher dhaco la isticmaalo oo ah in laba jambi loo fadhiisto la yidhaahdo waxaan soo doonnay gabar hebel, annaguna waa idin siinay, haddana dhanka kale lagu celiyo, haddana laga soo celiyo. qadiyaddii sidaasaa jiri jirtay. maanta halkaan waxaan ku qabanaynaa meher isku karisa la yidhaah. waxaan uga jeedaa isku karis. qadiyaddaasi hal meelay ka wada socotaa. gabadhu waa gabar reer Gurceela. Gurceel ogno hadda dee ma ogtahay markii la kaftamo waxaa la yidhaahdaa laba jimbiyaa loo degan yahay, labada jimbiyay gabadhu ka soo jeedaa, isla ayagaana guursanaya. marka waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno qadiyaddii ahayd in laba saf la galo oo baashi hal meel laga dhigo haddii la idmo, oo aan waxba la kala qaadin. waana sida aan isleenahay waa qurxoon tahay. ruuceel oo dhamaan rabnaa inaan hal qof ka dhigno haddii la idmo iyo hal jufo sidaasaana magaalada inagu deeqdaa, sharaftuna ku jirtaa, karaama ku jirtaa haddii la idmo. waxaan rabnaa ninka la yidhaahdo shaafici maxamed geedi, maxamed cali iyo xabse xuseen xirsi inaan meherkooda halkan ku qabanno haddii la idmo. wixii dee meher iyo hawl iyo farsamaha halkan shiikha fadhiyo saaxiibka iyo sheekh Saciid u fadhiya asaa koofid u soo qaatay iyo rag kale oo geesiisa fadhiya. laakiin aniga waxa ujeedkaygu waa xafladda furitaankeeda iyo inaan iftaaxa iyo sida xaalku tahay dadka u sheego. aad iyo aad u mahadsantihiin inta ka soo qayb gashay dhammaan iyo intana daawanaysana. waxaan rajaynaynaa inaan ducada ku kaalmayno reerkaas, ilaa inuu ka dhigo reer khayr iyo barako leh haddii ilaahay idmo. gabdhaha dambe oo ama halka fadhiya ama maqanna waxaan rajaynaynaa sidaan oo kale si lamid in loo doono, laga dhaafo gabdhaha waxaa la yidhaha saqiira suujiska iyo borobokista cararaysa masaafada. waxaasu gabdhihii waa u dhameeyeen, sharaf iyo karaamana maahan, xalaal barqaa la qashaa la yidhi. nin kasta oo gabar rabow haddii jeebku kugu yar yahay waxaad heli doontaa cid ku caawisa, ha la dhuumanin. midda kale baashii hadda ceyriina ka bixi weyday. nin kastoo gabar qaata waxaad maqle aabbaheeda dhusareeb joogay, marguura laga xiray, ceel dheeroo fadhiyey, cadaadou joogay. marka intii balaayo ka daba qayliheed waxaa manaasiba in la iska dhaafo waxaas, la soo guri galo, gabdhaha la doono. dadka gabdhaha dhalana waxaan ku daarmay ayuun gabdhaha inay bixiyaan, aysan ku adkayn wiilasha iyo dadka raba. aad u mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa dadka sharafta leh ee maanta wiilka iyo gabadha reer Gurceel isku daraya oo culumadiinku u horeeyaan, odayaasha dhaqanka, dhalinyaro. hadda odayaasha dhaqanka ma muuqdaan, waxaan malaynayaa meesha aniga taaruleeda maanta waxaan ka nahay odayaal. marka
أخياري سود وهذا آدي جمعة مباركة كل وركي نحر كيسي عثمان طار ونبضون سياسينا يا وحي نسكون قاطي waxaan soo dhaweynayaa dhalinyarada reer Gurceel mahrinayo ninka la yiraahdo Shaafici Maxamed Cali iyo Xafso Xuseen Xirsi Colaad aad iyo aad aan u hambalyeynaya